maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno time management sida waqtigu u manage gari kartaa. waxaan rabnaa inaan ka hadalno 9 qodob oo ku wajahan sida loo maareeyo waqtigaaga. marka waqtiga inaad u maareysid u baahan tahay number 1 qodobka waxaa ilaalisaa prioritization inaa waxa aad siisa muhiimadda. waxaa jiro waxyaabo oo muhiim ah noloshaada u leeyahay. waxyaabaha muhiimad nolosha u leeyahay waxaa loo qaybay essential and non-essential priorities. waxyaabaha aan essential ahayn jiro. waxyaabaha noloshaada essential ku ahayn waqti ha ku bixinin. waxyaabaha essentialka waqti ku bixi. maxaa essential ah? waxbarashadoo kale hadda ardayga taa jaamacada dhigataa essential waaye waqti ku bixi. waa shaqaysaa shaqaalaha taa meela ka shaqaysaa essential waa waqti ku bixi. laakiin waxyaabaha essential maxaa kamid ah entertainment oo kale inaa filmo daawado aniga essential ima aha muhiim ima aha. film musalsal rabaa inaa fiirsado essential ima aha. waxaa rabaa inaa ani aan waqtiga ku dhumay playstation adil essential ima aha. waxyaabaha essentialka ku ahayn oo waqti ku bixinaysa iska dhaaf. time management sameyso. haddaadan time management lahayn waxyaabaha priority-ga noloshaada ku ay waxyaabaha priority ku ahayn aad aragtid problemka kugu badanayo. waxaa kugu badanaya free time-ka inaad ku saarayso waxyaaba maalay yani waqtiga kama faa'iidaysanaysid. haddaad essential samaystid list la samaystaa. hadda jaamacada dhigtaa semesterada jaamacada way socdaan. essential waa jaamacada muhiim waa jaamacada waqti gelina. waqtiyada jaamacada ka soo hara marka maxaa sameynaa waqtiyada jaamacada ka soo hara waxaa sameynaa waqtiga waxa ku bixinaa waxyaaba aan ii faa'iideynayo. maxaan ii faa'iideynayo online waxaa baranaa jobs waxyaaba online laga shaqeyn karo. haddii hadda aan shaqo u diyaarsanayn oo qof dhalinyaro hadda soo baxay ahay aan shaqo gaarin maskaxdeeda kobcinaa. jirka bini'aadanka waa la kobciyaa. kobcintiis maxaa lagu kobciyaa cunno lagu kobciyaa. maskaxdan maxaa lagu kobciyaa inaa wax badan akhrisid. maxaa sameynaa marka buwaagta oo ani fildiga ana u baahana mustaqbalka buwaagta qusaya akhrina. fildiga u baahanta maxay tahay tusaale adi caafimaada bartaa. caafimaad maadaama aad bartid beri caafimaadka ku ganacsartaa ku shaqaysartaa ha ganacsi baro. maadaama jaamacadda aad doorata caafimaad ganacsi aadan barin ganacsi hadda baro. waxaa sameysaa marka listi buwaag ganacsiyaa soo raadinaa. waa baxaa suuqa tagaa buwaagta ganacsiga oo akhriska caadiga $1 bar $2 la gadaa. meesha adduunyada ka joogtid $2 $3 ma ka badno. buwaagtaasaa soo gadanaa waa akhrinaa marka. iskula day maadaama aad priority waxbarasho ku jirtid arday aad tahay qof oo mutacalim aad tahay inaa xooga saarto luqadaha. dhibaatadu inta ugu badan dhalinyarada Soomaalida ay qabaan waxay tahay luqadaha ma bartaan. luqadda Ingiriiska waxay ka daba wareegayaan 10 sano. maalinkoo oo 8 jir yahay ama 10 jir yahay wuxuu bilaabaa inuu luqadda Ingiriiska barto. markuu jaamacad dhiganayo luqadda Ingiriiska ma yaqaano. dhibaatada ku haysta maxay tahay luqadda Ingiriiska markaa rabtid inaad barato waa inaad buug akhrisaa. read book beginner English. ana buuga akhrinayo maxaa u baahanahay ani maxaa xiiseeyaa. tusaale footballka entertainment book football akhrina. waxaa raadinaa book football laga qoraa raadinaa. ani maxaa entertainment iyo filimada jecla book filimada laga qoraa raadinaa. maadaama aan ku dhahay filimada waxaan iska ilaali dad waxaa jira marka jecel inay filimada daawadaan. buug noocaas laga qoraa raadinaa. saasa waxaa ku baranaya luqadda Ingiriiska. laakiin haddaad aan luqadda Ingiriiska rabaa inaan barto iskuul xaadira 20 sano hadda iskuul xaadirta luqadda Ingiriiska iyo ma baranaysa. Ingiriis inaa barto martaa book priority saar. marka list to do sameyso waxyaaba essential noloshaada ay qabo. waxyaabaha noloshaada essential ku ahayn ka fogaaw. haddii aa waxyaaba essential priority noloshaada ku aad ku mashquulsid waxyaabaha noloshaada aan essential ku ahayn aad ku mashquulsid waqti waa ka dhamaanaa. adoo waxaa arkay 25 sano ku bixinaya waqti waxaanan wax ku taraynin. dhalinyaro waxaa arkay hata baabajiye ay dheelayaan 90 game ay dheelayaan besa dheele. waxaas maxaa loo sameeyay ninka iskale PlayStation-kaas oo bes loo yaqaano ama loo yaqaano baabajiye loo yaqaano muxuu u samaystay inuu lacag ka sameeyo. kulama aad soo booqatid lacag u socota asiga. Google AdSense oo lacag qaadana. adina marka maxaa laga rabaa waxaan Google AdSense lacag sameynay soo qofkaas u fikir. cunug yariis taa sax waay. raadi cilmiga YouTube aa jiro oo wax walba la soo geliyo. hadda waxaa iga daawanaysaa YouTube waxa la soo geliyaa. YouTube waxaa ku qortaa aan waxa u baahanahay dhaqaale la raadiyo adduunyada how to get money. waxaa ii sheegtaa shaqooyin oo aan dhaqaale ka sameyn kara ii sheeg. YouTube-ka priority-ga saar. waxaa priority-ga saartaa waxyaaba adiga oo mustaqbalkaaga maskaxdaada kobcinayo. maadaama jirkaaga raashin kobcisa maskaxdaada kobci. akhriska buwaagta badi. priority samey maadaama u dhaxaysa 18 jir ilaa 25 jir u dhaxaysa. mar hadda 25 jir aad dhaaftid waxaa la rabaa maskaxdaada IQ-gaaga inuu u dhaqmo sida qof weyn camal daa fikri kartid.
mustaqbalka inaad ka faa'iidaysan kartid. Ani markaan yaraay waxaan xooga saari jiray inaan buwaagta akhriyo. Waxaan dhihi jiray aabbahay buwaag ii soo gad, buwaag guri ii keen. Iskuulka markay ilmaha dhigtaan, fasax markii lagu jiro labada bil fasaxa, ana fasax ma geli jirin. Waxaan raadin jiray secondary ku jiraa, form 1 ku jiraa. Buwaagta form 2 lii bari jiray, guriga lagu bari jiray. Waxaa lii bare to do list saa u samaysto waqti inaad ka faa'iidaysto. labada bil fasax dadku waxay ku mashquulsan yihiin inay banooni dheelaan, banooni ma dheeli jirin badanaa. Waxaa ku mashquulsanaa jiray to do list yaa lahaa jiray. buugga chemistry la aqrinaa, xisaaba la aqrinaa, waxaa la aqrinaa physics la aqrin jiray, guriga lagu keeni jiray. Markaa dhamaysto, markaa form 2 u gudbo waxaan already diyaar u ahay. waxaan diyaar u ahay jiray form 2 inaa qaabilo. Macalinka sabuurada mathematics xisaabta oo saaro markoo minus ama plus qaldo wuxuu dhihi jiray haye eeno iyo waran maxaa qalday jawaabtu waxaa rabin 9 soo saarto 9 ma soo saaray meeshaasaa minus ka tagtaa dhihi jiray. Macalinka wuxuu dhihi jiray wuu sixi jiray. markaasuu dhihi jiray eenu ha laga faa'iidaysto. maxaa ku gaaray guriga waqtiga timeka waqtiga mashquulka ah waxaa lagu faa'iiday jiray. haddana iskuulka markii la furo galabtii maxaa qaban jiray buu ingiriis la aqri jiray. buu ingiriis English for Africa lahaa oo xilliga Seedbar la bari jiray. aabbahay xilliga buugta wax lagu soo baray guriga lagu aqri jiray. priority waxaan saari jiray wax aqris iyo wax barasho. haddana heerka aan gaar waa dareemi kartaa. ilaa heer master aan gaaray, haddana PhD xareesta PhD aan wadaa. aad marka waxaa laga yaabaa to do list inaad samaystid. qodobka labaad planning waa inaad qorshe leedahay waay. haddaadan noloshaada hadaf lahayn waxaa arki doontaa adoo 30 sano nool oo waxba qabsanin, adoo 40 sano nool waxba qabsanin, adoo 50 sano nool waxba qabsanin arki doontaa. waa inaad leedahay planning, waa inaad leedahay qorshe, leedahay to do list inaad samaystid waay. haddaadan qorshe lahayn, qorshe aadan ku dhaqaaqin, waa iska noolaanaya waxa artaa samaysaneen. marka qorshe samayso. time management waqtiga muhiim waay. carabtu waxay dhaheen alwaqtu kasayfa fa in lam yaqdac qadcahu. waqtiga sida seefta camal wuu ku jaraa mar walba isbedela kugu dhici karo. waqtiga ka faa'iidayso waa inaad samaystaa planning. qodobka labaad. qodobka saddexaad productivity technician lahaw wax soo saar yeelo. adoo da'da 18 jir waxaa ku fikri jiray dhaqaale in laga sameeyo online-ka. hadda waxaa dhaqaale laga sameeyaa Shopify. website la dhahayo Shopify ayaa jiro. inta ku soo saara Shopify-ga akhriso, Shopify-gaas gal, drop shipping ka shaqeyso. wax yaroo sahlan waa, course yaroo sahlan waa. haddii u baahato bisha $1 ka qaada website-ka, wuxuu ku leeyahay bisha $1 iska bixi. priority waxaa gelisaa self management, productivity inaad leedahay. adoo da'yar haddaa baratid sida online-ka lacag loogu sameeyo, beri markaa weynaadid millionaire noqonaya. laakiin hadda adoo yar haddaa ku mashquulsan tahay inaad best dheeshid magacaalaha geemamka caadiga la dheeli inaad dheeshid, waqtiga geem ku bixisa nin geemka iskala lacag kaa sameynaayo. beska maanta adheelos aa boqon nin lacag sameynayo. waqtiga waxaa samaysaa productivity yeelo inaad wax soo saari kartid. xataa free time-ka waxaa ku bixisaa caafimaada barataa, labada bil fasaxa isbitaal raadso, volunteer inay kugu shaqeynaa dheh, skillskaaga maskaxdaada dhis, aqoontaada sar u qaad. haddaad tiraahdo guriga jiifana labada bil fasax waa nasana, nasiino wax ma kuu taraayo. qofku wuxuu nastaa markuu weynaado u duquu nastaa. ayeeyadii iyo awoowaha waa aragtay guryay fadhiyaan, guryay jiifaan, mar walba ayeeyaha awoowaha guri kama baxaan. maxaa dhacay nasiinay ku jiraan, sariirtay saaran yihiin, guryay jiifaan, qaar waa jiran yihiin, qaar waa caafimaad qabaan, gurya iska dhex jiifaan. duqnimaas sariir gelisa. markaas aad duq naqatid aad sariir fadhiisanay aa nasanay. inta ka horeysa marka maxaa laga rabaa inaad waqtiga ka faa'iidaystid. qodobka afaraad goal setting waa inaad hadaf leedahay. hadda 2025 dhammaanooy 2025 maxaa ii qabsoomay, waxbarasho ilaa heer intay gaaray, meeqa luqadaa bartay. xataa haddaad priority saarto luqad inaad baratid beri faa'iiday kuu tahay. haddaa hal luqad baratid 2 qofaa tahay. af Soomaali waa ku haysa luqadda hooyo waay. luqadda Ingiriisaa baratay 2 qofaa tahay. luqadda Faransiiskaa baratay 3 qofaa tahay. luqadda Portugiiskaa baratay 4 qofaa tahay. luqadda Isbaanishkaa baratay 5 qofaa tahay. luqadda Talyaaniga baratay 6 qofaa tahay. yacni kullama luqad aad baratid dadnimadaada kordhayso way badanay. dadnimada shakhsiyadaada badanayso. laakiin haddaad tiri aan luqad dhanba baranayo maskaxdeeda barinkay ma kobcinayo. cilmiyadan kale online hadda adduunyadan wuxuu u guuray technology u guuray, IT u guuray. waxyaabaha IT hadda la keenay aan baranaa, si application loo sameeya baranaa, application fikra keena. xataa waxaa samayn kartaa fikir idea kugu soo dhacay, baskaan la dheelooyo asoo Soomaaliya samaysan kartaa, adaa alifi karo, coding la qoro waay. lacagta kaaga baxa aaday u yartahay. adaa waxaa dhigi karta beri application samaysana oo banooni dheelaayo sida beska camal u samaysan, suuqaa soo gelina, magacyada dadka baleerada dheelaya magacyo caadi isticmaala, dhaqaalaa ka samayn kartaa. laakiin gool waa inaad leedahay. haddaadan gool lahayn dhaqaale ma samayn kartid.
waxaa kaloo waqtiga ku manage garay kartaa tracking your time setting inaad samaystid waay goormee ana soo kaca goormee jiifana dhibaatada ugu badan dadka shaqaalaha ay qabaan waxa waaye waqtigooda ugu badan waxay ku bixiyaan tiktok inay fiirsadaan inay youtube fiirsadaan inay instagram fiirsadaan inay facebook fiirsadaan caawada hadda youtube iyo tiktok ku mashquulsan berina shaqo kuu taalo subaxi ma kici kartid marka subaxi inaa kacdi way kugu adkaaneen waqtigii hurdada laga kaca markii la gaaro caajisaa dareemay maxaa dhacay iyo ma jiifanin salaad subax xataa way kugu adkaaneen haddaa u baahan tahay marka waqtigaaga inaad ka faa'iidaystid iyo jiifo iyo maxaa ku jiifi kartaa time management inaad samaystid inaad tiraa aniga 10 habeenimo markii la gaaro marka dib maraay 10 habeenimo wax walba oo dhac jiifo habeen walba jiifo subaxi 5 subaxnimo soo kacay salaad subax masaajid maxaa ku tukanay kadib buug akhrisanay quraan akhrisanay to-do list yaa samaysatay buugtaas ay akhrinaysid maskaxdaada ay kubcinay jirkaaga waxaa kubciya raashinka cuntay maskaxdaada maxaa kubcinay buugtaas ay akhrisatay garaadkaaga waa ziyaada prediction sameynay حتى بوليتيكالka markii laga hadlaa waa qiimeynaya waxa la siyaasad dhinacaas u dhacay sababtoo maskaxdaada waxa ku bixi buug badan akhrisatay adduunka dhaqaalaha meesha u socda fiirne dhaqaalaha adduunka wadankaas isku bedel doona dhaqaalaha jecesha inaad ka fikirtid buugta dhaqaalaha akhrisatay biri waxa maskaxdaada kaashtay waxa la dahabka maadaama hadda oo sar u kac qiimihiisa bilooyin kadib hoos u soo dhaca maxaa ku keentay predictionkaas aqoontaada ku baysay dadka hadduu wax saadaalna arkusna aqoontooda ku bacday ilaahu wuxuu yiri calamal insaana maalam yaclam insaanku waxaysan aqoonnaa bare adinu dadka waxaas oo ilaahay aayadu ku sheegay dadka uu dhahay waxaan bare kamid noqo wax baro buugta akhriso aqoontaada ku bixi dhaqaalada jecesha buug dhaqaale laga sameeyo jiro hadda jecesha in sport ku takhasusid oo bari coach inaana qata book coach laga diyaariyo jiro hadda dhakhtarnimo jecesha in dhakhtarna qata jecesha buug dhakhtarnimo laga diyaariyo jiro buugta raadi akhriso buug sheekooyin jiro novels allah حتى لغة إنجليزكا oo ku bari kartaa kor u kacay luqadda Ingiriiska bari maskaxdaada kor u kacay IQ kor u kaca meesha aad ku mashquul lahayd dadkan TikTok wax soo dhiga entertainment hadda maanta 100 xab entertainment hada fiirsid iyo hal buug hada akhriya ku qiimo badan halka buug ku qiimo badan hada tiraahdo maanta 100 entertainment oo shactar YouTube kala soo dhiga ama TikTok fiirsana 100 entertainment afarta waxa ka qiimo badan hal buug aad baratay umada qaar dadkii u faa'iideeyaan qaarna dadku waxay ka sameeyaan dhaqaale ka sameeyaan shactare sameey la qosol views ugu badan fiiriyaa helo dadka shactada sameeyana qosolka sameeyana views ugu badan helo dadka maxaa lagu mashquuli maala yacni lagu mashquuli inay buug akhriyaa ma rabaan inay maskaxda kobciyaa ma rabaan marka waxaa sameysaa track your time waqtiga ay ka faa'iideyso inta yarta hadda waqtiga ka faa'iideyso weysid bari waxaa arkay adoo 25 gaari oo shaqeynayo mar hadda shaqo bilowdid waqti aad wax ku akhrisid meelaysid waqti aad wax ku barid meelaysid waqtiga kugu yaraanayo hadda inta ardayga tahay subaxii jaamacad ka shay galabtii ka soo baxda galabtii ilaa habeenka laga jiifana waxa qabanayso waqtiga ka faa'iideyso banooni dheela daatiraad bari waxa arki doontaa shaqo ku soo bixi doontaa waa shaqaysan doontaa family ayay doontaa naag guursan doontaa ama gabadha taa waa aroos doonaa hadda to-do list aad samaysan oo wax baran ilmahaaga bari ma tarbiyay kartid ilmaha tarbiyada ku adkaanayso eliminate distractions waxa ka faa'iideystaa waqtiga aad ugu faa'iideysto waxyaabaha oo maalayacniga elimination ku sameey iska dhaaf maalayacni iska dhaaf filimada la fiirsana entertainmentiga maalayacni iska dhaaf waxyaabaha maalayacniga booskiisa buug akhris gasho luqadda ingiriiska iska dhisaa luqadda ingiriiska meelaa saare afka kugu xiga maxaa waaye sabaaxiliyan barnaa dheh waxaan barnaa afka magaciisa maxaa la dhahay talyaaniga barnaa luqadahaas oo dhan raadi maskaxdaada kobci IQ-gaaga sar u qaad maskaxdaada markii kobacdo oo aqoontaada easiyaad luqado badan hadaa taqaan community kala duwan la macaamile sabaaxiliya barta Kenya tagta af sabaaxiliya kula hadle ja community ku adkaanay faransiiska barta wadamada faransiiska looga hadlaa tagta faransiiska kuma adkaanay laqadaa tiri ani kali waxaan ku ekaana meesha maanta ajo waqtiga entertainment ku bixina entertainment wax ma ku taraa maalinka aad dhalaatay ilaa hadda filimka ay fiirsanaysid maxaa ku soo kordhay wax ma ku soo kordhay laakiin hadda luqad baratid ama buug akhrisid buug waxba ka faa'iiday buugta hadda waa la fududeeyay mobile application soo aha jiro mobilka gashane application ana gashane mobilka ka faa'iideysane buugi hatta ina soo geeyto muhiim ah application oo waxa jiro oo mobile soo tagsado oo buug walba ka helaysa ka faa'iideyso waqtigaaga delegate say no waxyaabaha maalayacni markii lagu imaado qof markuu ku dhoona keen bas dheelina maya badheelay baabajiya dheelina waqti misaga dhuminay hatta fiiri baabajiya dadka dheelina lacag ku bixin ay geliyaan baska dadka dheelina lacag ku bixin ay geliyaan PlayStation lacag ku bixisa lacagaha meesha maalayacni ku bixinayso ku bixi aqoonta ina ku bixisay waqtiga ka faa'iideyso inta yarta hada waqtiga ka faa'iideyso weys
beri markaa weynato u shalayne mar walba aa weynaatid waxaa ka shalayna waqtiga kusoo dhaafay ciyaalnimadaada u shalayne dhalinyaranimadaada u shalayne markaa aa weynaata aa sirru ku awooto waxaa leedahay markaa yaraa xooga u qabsan waaye mar walba waxaa ka fikirtaa passive income inaad samaysid income mid aa ku nooshahay reerkaaga oo ku biilinaysid waaye midna waxaa loo yaqaanaa passive income dhacdhac aa helaysid oo maalin jooga aa ka dhiganaysid iyo keed aa ka dhiganaysid yani dhacdhac markaa heshid lacagtaada oo biilka waa kala qoondeyne dhacdhac waa helaa leedahay lacagteeda biilka qaybna meelaan dhiganaa safena dhiganaa qaybna waa ku noolaanaa passive income-kaaga marka magaalada ku baashaale laakiin haddaadan passive income aadan samaysanin oo aadan ku fikirin hadda qorshe oo passive income aad ku samaysid aadan ku fikirin beri waxaa naqani qof oo biil iyo mishaarka daba ordo mishaarkaaga hadduu bisha dhammaado bisha dii 25 la gaaro ama 15 la gaaro mishaarkaaga wuu kaa go'ay shaxaadaa raadinay maxaa dhacay qorshe iyo balaan mala aadan lahayn marka waxaa samaysaa dadka ku dhahay amaala yacni meelahan ka soo muuqano aan tiktok aan fiirsano aan bas dhil aan kan dhil waqti asaga dhumin xataa banooniga aad waqtiga ku bixinaysa tirada badan iska dhaaf ani banooni waqti badan kuma bixin jirin markaa yaraay waqtigii ugu badan waxaa ku bixin jiray waxbarasho gelinka galabtii subax iskuul markaa ka imaada galabtii waxaa ku bixin jira in guri lagu baro ingiriis xataa hadda bareefadyaa furan xilligaas bareefadida way yaraayeen kuwaalta ma lahayn hadda waxaa hele bareefadyo kuwaalta leh oo si fiican wax lagu barayo ka faa'iidayso waqtigaaga iyo waxbarashadaada tech breaks mar walba waxaa samaysaa maadaama aad time management aad samaysay nafsadaada break sii isbuuci 7 maalin waay hal maalin nafsadaada cazuum waxaad tiraahdaa yani qof shaqeeya ah hal maalin inaa cazuum waay haddaa family leedahay adii xaaskaaga israaca meel isla taga soo cazuuma hawo macaan joo macaan soo qaado sababtoo markaad nafsadaada aad siisid tech break aad siisid nafsadana beri waxay ku siinaya waqti aad ku shaqaysid ma ku dhibayso laakiin nafsadadaada u raaxaynin adi beri ma kugu raaxaynaysa xilliga shaqada ma kugu raaxaynayso sababtoo jira imaanayso cudura imaanaya stressa imaanaya stresska maxaa koosgareeya management la-aana koosgareeya dhalinyarada inta ugu badan feeri banooni maanta ma dheelooyo wuxuu qabta male gurigu iska jiifaa wuxuu samaynaya male markaasuu leeyahay maxaa qabtaa maxaa sameeyaa nolosha afrika taal nolol ma aha stresska naga batay waxbarashada taal wadanka waxbarasho ma aha waxaasa iska dhadhicin waxbarashadu waa kontroolin tahay waqtiga adaa kontrooli waaye nolosha adaa kontrooli waaye waxbarashadu waa lagaa hubiyaa waxaa dowlada shaqo ku leh dowladdu waxay waqti gelisaa mar walba inay waxbarashada kaa hubiso dowlad walba afrika wadanka aad joogtid waxay waqti gelisaa inay waxbarashada kaa hubiso waxbarasho lahubaa lagu horkeenay adaa lagaa raba inaad ka faa'iidaystid ninka maanta maraykan joog ama yurub joog ama jena joog waqtigooda iyo waxbarashadoodii ka faa'iidaysteen systemkooda waxbarashaday bedeleen system oo waxay ka dhigeen waxbarashada wadankooda sar u qaadi karo warshaday samaysteen adduunku way horumareen IA wax la soo saaray ada maxaa kuu diiday marka waxaa kuu diiday afrika joogtaa dhahda fikira ku dilaayo fikirka maskaxdaada maxaa ku bixinay buug ba akhrisid iyaga maxay sameeyaan buwaagta maraykanka ee qoraan dhan jeena la geeyaa way ka faa'iidaystaan buwaagta jeeneska ee qoraan dhan maraykana la geeyaa waa loo tarjumaa way ka faa'iidaystaan waxay dhahaan jeeneska aqliga isticmaalaan aan faa'iidaysano inaa baxaya maraykan oo tagaa jeen oo taga buwaagta soo qaada uu tarjuma wuxuu leeyahay buugaa teknolojiyada ugu dambeeya jeena soo saara waay waa la wada gadana dadka oo maraykan way ka faa'iidaysanayaan adi maxaa kuu diiday marka buug inaa gadato online ahaana u helay pdf ahaana u helay ka faa'iidayso kadib afrika adoo joogtaa dhisa kartaa waqtigaa ka faa'iidayso nafsadaadana waqti sii waqtigaana ka faa'iidayso maintenance qodobka ugu dambeeya maintenance health life style life stylekaaga dhis raashinka cunays control subax waxaa ku quraacanays control waxaa ku qadinays control waxaa la rabaa raashinka subax inaa carbohydrate cuntid duurka carbohydrate iyo fats inaa cuntid habeenkii waa inaa cuntaa cunto oo protein ku badan tahay waa inaa cuntaa habeen waa inaadan cunin carbohydrate sababtoo jirkaaga habeenka markaa jiifid carbohydrate cunto wuu shaqeynaa carbohydrate energy soo saara energy soo saara ma isticmaali karto adoo hordoosaa laakiin protein markaa cunto jirkaaga ka faa'iidaysana wuu nuugaa energy waxa ku shaqeynaysa waa marka waqtigaa ka faa'iidaysta waqtigiina ka faa'iidaysano intaa yartiin hadda waqtigiina ka faa'iidaysa waysa to-do list aad samaysa waysa beri adoo waqtiga kugu dhaca arki doonaa marka barnaamijkeena ugu hadlayna time management intaas kusoo gabagabaynaynaa haddaad isleedahay mawduuc dhakhtarka kasoo hadlo commentiga noogu reeb mawduucaasa kasoo hadli doonaa waana maasintiisa